السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها مسلمين تميل والبد جوكتين. الله إذن كرامه، إله إذن شرفه، إله إذن عزيه يا رب العالمين. ولا ليال إله فضلك يسوي بديه. الله سبحانه وتعالى خير كل نسيينه لمسوكو بكرو. إله سبحانه وتعالى نعموين كل نسيه وحكم إذا ولا ليال. وقت يذن بركيسن والنبي النوشي عليه الصلاة والسلام. ما أنا ما دويته وحن كجرني 10 ذو الحجة. كدبنا عرف هنصوني. اللهم لك الحمد. إله عرف هذا ذنب النجارسي. haddana waxaa noo soo galay maalin barakaysan, maalin cajiib ah oo la yiraahdo yawm ashura. maalinta nabigeena suubanaha calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofkii soomo ilaahay dambigiisa sanadkii la soo dhaafay buu u dambi dhaafayaa. ilaahay aniga idinka ba Allah noo dambi dhaafo. ilaahay subhanahu wa ta'ala noo dambi dhaafo ya rabbal alamin. marka maalintaas barakaysan nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii xadiidkii ibn Abbas uu ahaa ayaa Madiina soo galay. markaasuu wuxuu arkay yahuuda oo maalintaas soomayso. markaasuu yiri maxaad la soomantiin? waa maxay maalintan? markaas yahuudi waxay ku dhaheen nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam waa maalin uu ilaahay badbaadiyay nabi Muusa alayhi salaam. markaasuu saxaabadiisa amray in maalinta la soomo oo ummadiisa uu amray. markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nahnu ahqqu bi Muusa minhum. nabi Muusa annaga ka xaq leh maalinta waan soomaynaa. nabigana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam sanadka soo socda hadduu ilaahay igaarsiyo la asuumanna taasic maalinta sagaalaad baan soomayaa buu yiri nabiga alayhi salatu wasallam. marka culimada waxay dhaheen walaalayaal ilaahay ha barakeeye waxayna dhaheen qofka wuxuu soomi karaa maalinta Ashura oo ah maalin sabti ah. maalinta sabtida marka waxaad ka hormarin kartaa jumcada, waxaadna ka dambaysiin kartaa axadda. yani maalinta sabtida kaligeed waad soomi kartaa, laakiin waxa ka fadli badan qofka inuu maalin ka hormariyo oo maalinta jumcada ah ama maalin uu ka dambaysiyo maalinta axadda ah. qofkii khamiista iyo jumcada iyo sabtida soomana ilaahay subhanahu wa ta'ala diwaasida dhamaystiran oo loo baahan yahay insha Allah tabaaraka wa ta'ala. marka maalintaas aan ku dadaalno waa maalin sabti ah, maalinta bisha 10 Ashura yawm mataqana shahr Allah al-Muharram. maalinta qofkii soomo ilaahay dambigiisa u dhaafaya. aniga idinka ba Allah noo dambi dhaafo. waan u baahanahay ilaahay haduu ku soo gaarsiiyo ku shukri. maanta dad badan baa walaalayaal qubuurta ku jiro oo jeclaan lahaa maalinta inuu ilaahay mataqana ay adduunka joogi lahaayeen si ay u soomaan oo ilaahay dambigooda ugu dhaafo. adiga haduu ilaahay ku soo gaarsiiyay, haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo gaarsiiyay maalintaas ama uu ku gaarsiiyo ilaahay ku shukri oo maalinta ilaahay u soon si uu dambigaaga ilaahay u dhaafo. dunuubtii ba iska badan walaal isha ka fakanayso afku marka qofku wuxuu ku hadlaa wuxuuna ilaahay raali ka ahayn. ilaahay subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla hal maalin oo soonto 12 saac ama 14 saac ama mataqaana maalin aad soonto oo ilaahay sanadkii dhan uu dambigaagii hore kugu dhaafo, wallahi waa wax weyn. laakiin dunuubta uu ilaahay dhaafaya waa dunuubtee weeye? waa dunuubta saqaa'irka ah. ama kabaa'irta waxay u baahan tahay in laga toobad keeno oo ilaahay loo toobad keeno subhanahu wa ta'ala. laakiin saqaa'irta insha Allah ilaahay wuu noogu dambi dhaafaya biidnillah. aniga idinkaba Allah naga dhigo kuwii soomo oo ilaahay u dambi dhaafa sanadkii la soo dhaafay. jazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.